بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا شرفت له سو دوادا كسو دوادا مدشان أنا ugu magac darnay hoyga horumarka qaybteeda aan ku leenahay YouTube magacayga waxaa la yiraahdaa Shaakir akhyaarta isla ninkaan soo ayaan la maahan naanisteeda hore soo dhawaada idinkana mininkiina waaye magacayga waxaa la yiraahdaa Shaakir akhyaar waxaan ahay samafale jecel inuu ka caawiyo bulshada inay arkaan awoodooda waxqabad si ay u noqdaan dad waxtar leh hadduu Allah idmo salaan iyo soo dhaweyn iyo isbarasho yar kadib waa markeeni koowaad iyo muuqaalkeeni koowaad oo aan madashaan qaybteeda YouTube ka soo dhigno hadduu Ilaahay idmo oo waxaan rajeynaa muuqaalkeen ugu dambeeyay inuusan noqon ee uu noqdo kii koowaad mawduuceena koowaad oo aan jeclaysanay madashaan inaan maanta ku daafurno waa maxay mawduucaas waxaan ugu magac darnay sanad maxaad ku samayn kartaa waa sanad maxaad ku samayn kartaa ama hal sano maxaad ku noqon kartaa maasha Allah sanad waxa waaye wax badan haddii laga faa'iideysanayo haddii aadan ka faa'iideysinna waa wax yar oo asagoo ordaayo asagoo ku dhaafa arkaysaa sanadkan muhiimadda macnaha waxaa waaye annaka maanta oo muuqaalkan soo gelinayno taariikhda meesha ku hoos qorantaa u malaynaa insha Allah maalintaasuu sanadka iiga bilowda aniga YouTube-ka adigana maalintaa muuqaalkan fiirsato uu sanadku kuu bilaabanaya insha Allah sanadku intuu kasoo wareegsanayo waxaa ku qaban kartid bal isku fiiri insha Allah marka sanadka waxaa ku qaban kartid waxaa isku dayi doonaa hadduu Ilaahay idmo inaan meeshaan 3 qodob ama 3 qaybood u kala qaado qaybta koowaad oo ah sanad maxaad ku qaban kartaa ama maxaa lagu qaban karaa oo maxaa lagu samayn karaa oo tusaalayaal ah waxaa ku samayn kartid iyo waxaa ku noqon kartid iyo waxaa rabtid dabcan adiga taqaanid laakiinse qaybtan aniga tusaale ahaan u soo qaadana hadduu Ilaahay idmo qaybta labaad oo ah sifooyinkee ama astaamahee ama tilmaamahee ama qodobadee waa maxay waxa lagaa rabo si aad u bilaawdid hawshan inaad bilaawdid macnaha go'aana qaadatay ficil arta inaad samayso laakiinse sifooyinka lagaa rabo inaa ahaato qofka inuu ahaado qasab maahan qaarkood waa lahaan kartaa qaar kaleetana insha Allah waa ka shaqayn kartaa laakiinse maxaa lagaaga baahan yahay oo lagaa rabaa inaad ku dadaasho si aad u bilaawdid hawshan insha Allah aana u dhammaysid qaybta saddexaad oo ah inta oo waxaas lagu noqon karaa saas laga rabaa saasana samayn kartaa inta ku yiraahdo iska tago qof kasta uu samayn karaa laakiinse waxaa loo baahan yahay dadkii qalab inaad u dhiibtid hataa ku yiraahdo baabuurkaas ii dayactir ama sameey oo baabuurkiina adigana aan qalab ku dhiibin ama hore aad u soo baran ama qalabka lagu furfurayo aad haysanin dabcan baabuurka ma samayn kartid ama gaariga qof walba soo yaqaano marka qodobka saddexaad ama qaybta saddexaad hadduu Ilaahay waxaan idin dhiibi doonaa waxaa idin wadaagi doonaa qalab oo aad ku samaysatiin caado dhaqameed cusub hadduu Ilaahay idmo oo fiican caadooyinkiina xunxumaay ama caado xun oo aad jeceshahay inaad iska joojisid ama balwad inaad ka guurtid aad jeceshahay hadday jirto ayadana waxaad ku burburi lahayd hadduu Ilaahay idmo idin wadaagi doonaa qaybta saddexaad waa qaybta ugu muhiimsan ani ahaan sidaan isleeyahay marka hadduu Ilaahay idmo waxaa ku bilaabanaynaa qaybta koowaad oo ah sanad maxaa ku noqon kartaa waa tusaalayaal yaryar sida haddaa idin soo sheegaba sanadka waxaa ku samayn kartid adigoo kaliya is yaqaano marka aniga intaan idin soo qaadan doono waxaa waaye waa tusaalayaal dabcan social media ku wada jirnaa dadka badankood sanad waxaa ku yareyn kartaa social media isticmaalkeeda ku yareyn kartaa waxaa kaloo idinku jiro dhalinyara loo badan yahay dad badan oo single isoo fiirinaya ujeedaa ayadana waxaa ku samayn kartiin hadduu Ilaahay guri barakeysan ku dhisan kartiin oo ku guursan kartiin xaas wanaagsan ama xaaji wanaagsan ku noqon kartaa hooyo ama aabo fiican ku noqon kartaa ganacsada ku noqon kartaa daaci dadka diinta ugu yara ku noqon kartaa qaari ama xaafid qof walba sidoo jecel yahay midkuu rabo ku noqon karaa millionaire ku noqon kartaa macquul waaye insha Allah adiga hadduu Ilaahay idmo laakiin qof kasta inay macquul u tahay Allahu a'lam laakiin waa macquul waa lagu samayn karaa qof naxariis badan qof sadaqa baxsi badan qof dabeecad wanaagsan qof xanta iyo xumaanta ka dheeraada ku noqon kartaa
calaacalka iyo cabashada iskaga yareyn kartaa. Mahadcelista ilaahay aad ku mahadcelinaysid aad ku badan kartaa. waxaad jiha cusub u jeedin kartaa oo aad go-aansan kartaa noloshaadii in aad caafimaadkeedii, dhaqaalaheedii, farxaddeedii iyo diinteediiba aad ka fikirtid oo hadda laga bilaabo hadduu ilaahay idmo aad jiha cusub u jeesato oo aad isku daydo waqtigan yar inta la nool yahay in aad qof wanaagsan adigoo ah ka faa'iidaystid oo meesha adduunyadan iskaga tagtid. oo anigana waxyaabaha meeshan u bilaabay ay ka mid ah oo Soomaalida dhahaan waarib maysidii war ha kaa haro. qof walbaba inaan raagaynin waa la ogyahay. marka waarib maysidii war ha kaa haro mahmaahda maadaama igu dheer tahay, aniga waxaa kala soo dhex baxay hashtag yaroo samaysta oo la dhahayo raadsan reeb. marka raadsan reeb hadduu ilaahay idmo oo macnaha intaa nooshahay dadkii wax wanaagsan caruur dhal u lagama wado waarib maysidii war kaa haro, waa dadkii wax wanaagsan uga tag. macnaha qof walbaba wuxuu awoodo ha sameeyo. insha allah deriskaaga iyo dadka kugu hareereysan iyo dadka kula jooga, kuwa isla shaqaysiin ama kuwa wax isla bartiin, waxay rabaanba ha ahaadaan, hadduu ilaahay idmo waxaa ka tagtaa raad fiican dadkii uga tag oo wax fiican aakhirada usii dirso. adduunyadanan afkaaga iyo addinkaaga ha laga nabad helo. inta aad ku intifaaci karta waxaas yar oo aad haysatana hadduu ilaahay idmo inaad ku saaciddo isku day. waxaa u imaanaynaa marka qaybta labaad. qodobka koowaad tusaalayaasha intaasaa uga baxaa. wixii kaleeto adigaa ku darsan kartid. waa taqaanaa tusaalayaal una iga ahaayeen aniga, laakiin adigaa taqaano meesha bogto iyo farta is ogaal lahaa. adigaa taqaanid macnaha waxa aad rabtid inaad iska yareysid iyo waxa aad rabtid inaad badsatid. marka kuwan aniga tusaalayaal una iga ahaayeen. qaybta labaad oo ah macnaha waxaa lagaa rabaa sifooyinkee lagaa rabaa in lagaa helo si aad u noqotid ama u bilaawdid howshaas aana u dhamaystirtid. midda koowaad oo aniga muhiimka u arko waxaa waaye qofku inuu noqdo qof ilaahay ku mahadiyo. haddaa ilaahay ku mahadiso waxaan aa haysatid horta hore alxamdulilah inaad dhahdid waaye. inaad ilaahay uga mahad celisid qof bini aadan ah inaad tahay marka koowaad, oo ilaahay uusan xayawaan kaa dhigin. midda labaad inaad tahay qof muslim ah oo ilaahay uusan gaal kaa dhigin. gaal haddaad tahay xayawaankaaba roomba oo aakhiro lagu cadaabeyn, laakiin gaal haddaad tahay aakhiro cadaaba kaaga dambeyso. adduunkana waqti yar waaye, hadeeru iska dhamaana. marka nimcooyinkaas inaa ilaahay uga mahad. midda saddexaad waxaa waaye inaa caafimaad qabtid, inaa ilaahay uga mahad celisid. inaa ilaahay uga mahad celisid waxyaabahan dhan oo haysid hadeer indhahaaga, dhagahaagan ama muuqaalkan uu kugu soo gaarayo iyo caafimaadkan kulli inaa ilaahay uga mahad celisid. weli inaa waqti haysatid ayadana waa inaa ilaahay uga mahad celisid. waa nooshahay, caqliga ilaahay ku siiyey, waxaa bedeli kartaa ilaahay inaa uga mahad celisid ayadana. midda labaad waxay la xiriirtaa mahadcelintay la xiriirtaa qodobka labaad oo ah qofka inuu joojiyo isbarbardhigga qaldan. isbarbardhigga qaldan waxaa waaye tuugga farxadda. nin aa yiri hadeer magaciisa ma hayo, laakiin qoladan cadaanka nin kamid aha yiri waxaa waaye qofka dadka kaleeta hadduu isla barbardhigo waxaa waaye tuugga farxadda waaye. farxaddiyo kaaxada adiga dhan maanta dhan waxaan aa haysatid iyo nimcooyinkan hadda kasoo sheekeynin uma jeedid ee waxaa ujeedaa hebel ama heblaayo oo halkaas taagan oo waxaasay haystaan oo saasii saasay maraayaan, heerkaasii heerkaasay gaareen aa ku mashquulsan tahay. ayakan waxay ku mashquulsan yihiin qof kaleeto oo kasii horeeya oo kasii sareeya. waxay leeyihiin hebel iyo hebel saasuu gaaray, heblaayo iyo hebel meeshaasay maraysaa oo waxaasay haystaan anigana ma haysto. marka qof walbaba qofka kaleeto kusii mashquulsan yahay farxadoodii iyo waxay haysteen iyo waqtigan hadda la joogaan way ka mashquuleen. marka inaada ku mashquulin waxyaabahaas oo isbarbardhigga qaldan aada joojisid oo macnaha iska dhaaftid dadkaas kaleeto waxay kaa dheeryihiin inaad fiirisid ee adig yaa fiiristid dadka kaleeto wax ka maqan oo adiga ilaahay kugu nimceysto uu ku siiyey iyo waxyaabahan kale oo hadda haysatid iyaana ogaatid waxaan inay process ay yihiin. macnaha meeshaas ay dadkaas kale joogaan maanta aadi joogtid berita adi waa gaari kartaa. berita adiga waa gaari kartaa hadduu kheerku ku jiro. haddii kaleeto ee shar ku jirtin ilaahay ha kaa badbaadiyo. jeclaashaha aad jeclaanaysidna adigana allah kaa madoobeeyo. marka isbarbardhigga wax weyn kuma sameynayo inuu farxadda kaa xada ma ahane. qofka dabcan tusaale fiican waa u qaadan kartaa, wax wanaagsan waa uga dayanaa waa dhihi kartaa. kaas isbarbardhig qaldan maahan, waxaa waaye qof wax wanaagsan uga dayata waay. laakiin waxaa la diidaa inaad ka masiirtid qofki macnaha ama ixun aad ku fiirisid
ama aad dhahdo anigana maa gaara ama qanaacada dhan ee kaa dhuntaba maadaama meesha uu qofkaas uu taagan yahay un ee kuu caddahay oo waxyaabahan aa haysato iyo waddadan aa hadda maraysa iyo waxaan process ay yihiin aysan kuu muuqanin. marka inaad joojisid isbarbardhigga qaldan waa qaybta saddexaad. waxaa waaye niyadaa lagaa rabaa qofka inuu niyad la imaado hawshan inaad bilaawdid. xadiiska nabiga noogu sheegay inama alacmaalu binniyaat wax kastaba niyadday ka bilaawdaan. salaada adoo tukanaysid haddaa u niyeysid ka waran salaadii inay jimicsi tahay waa jimicsi waa ma arkin waxaa waaye waxba kama jiraan marka salaadaada ma ansixayso maxaa yeelay niyaddiyaa kaa maqan. waxyaabihii marka aad samaynaysid qofka waxaa lagaa rabaa inaad niyeysatid waxaan aad samaynaysid wax hadda laga bilaabo saas iyo saas aa sameynaa waxaas wanaagsanaan ka damacsanahay. markastana insha allah niyadaada wax wanaagsan ku xir oo isbedelku wuxuu ka bilowdaa niyaddu ka bilowdaa. markaa niyeysatid niyadda maxaa ku xigo waxaa lagaa rabaa go-aan inaad qaadatid. waa niyeystay haddaa niyeysto oo meesha iska fadhiya ka hor wax ma isbedelaya waa maya. go-aan inaad qaadataa lagaa rabaa. go-aanka markaa qaadatid aad isku daydid go-aankaas in aad fulisid hadduu ilaahay idmo. go-aanki waa qaadatay maxaa kuu soo haray maasha allah. go-aanka maadaama aad qaadatay waxaa lagaa rabaa tilaabo inaad qaadatid ficil inaad ku dartid. qof kasta go-aan wuu qaataa qof kasta hadaf wuu leeyahay laakiinse meesha maxaa ka maqan ficilkiyaa ka maqan iyo tilaabadii aa isku dhaafay. qofka maanta ma arkin oo dadkan tartamada maasha allah ah ku guuleysanayo iyo dadka kaleeto oo macnaha isla bilaabeen kooxaha markii yaryaraayeen ee isku koox ahaayeen isla bilaabeen iyo kuwan kaleeto haddeer guulaha gaaraya isku hadaf ahaayeen kulligood waxay rabeen professionals inay noqdaan oo macnaha bilo dahabi ah ay ku guuleystaan ay rabeen. marka maantana kuwaan way ku guuleysteen kuwa kaleetana kuma guuleysan maxaa dhacay isku hadafay ahaayeen laakiin kuwaan hadafkoodii way u shaqeeyeen oo ficilay ku dareen macnaha tilaabay qaadeen tilaabay la imaadeen. marka tilaabadii haddaadan la imaan go-aankaa qaadatay iyo hadafkaa laheyd waxba kuuma taraayo. tilaabadii waa la imaatay ficilka waa samaysay laakiinse waxaa lagaa sii rabaa haddana inaad joogtaysid. ficilaa la joogtaynin oo qodobka shanaad ah. afaraad waa go-aanku ahay shanaad waxaa waaye tilaabo ficil inaad la imaatid. lixaad oo ah joogtayn inaad joogtaysid wixii haddaadan joogtaynin waqti badan haddaan waxa la joogtayn oo lagu celcelin waxaa waaye hal maalin waxaa samaysay wax weyn ma bedelayaan. aniga hal maalin muuqaalkan meesha haddaan soo geliyo oo sida meeshaas kaga dhaafo youtube muuqaal dambe aanan soo gelin ma dhihi karaa waxaa ahay qof youtube-ka dadka wax soo geliyo dadka wax u gudbiyaa ahay ma dhihi karaa waa maya. maxaa yeelay joogtayn la igama helin oo maad hal muuqaalaa soo geliyay kadibna waa iska dhowto waa iska baxay. marka waa midaas midda ka mid ah oo haddaa isaa idin dhahay muuqaalkan ilaahay kama dhiga kii ugu dambeeyey ee allah ka dhiga kii bilowga ahay. haddaadan joogtaynin oo wixii aadan joogtaynin ficilkii aa samaynaysay ama tilaabada aa qaadaysa haddaadan joogtaynin waxaa waaye hadafkaaga sidaa ku gaartid way adkaanaysaa. waa joogtaynaysaa markaad joogtaysid maxaa lagaa rabaa waxaa laga yaabaa adigoo joogtaynayo oo dadaalayo oo maalin kastaba soo taagan bil kastaba soo taagan sanad kastaba soo taagan haddana weli hadafkaaga inaad gaarin oo aad iyo arrinta kugu adkaato. maxaa lagaa rabaa qodobka ugu dambeeya oo ah sabarka. sabaraa lagaa rabaa ama dhabar adayg sida af soomaaliga lagu dhaho. xarjiina dhabar adayg af soomaali in lagu dhaho oo sabarkaas maadaama carabi uu yahay laakiin sabar iyo dhabar adeygaasaa lagaa rabaa inaa u sabartid dhibaatadan kugu dhacayso dadaalkan aad dadaalayso oo natiijadiisa aadan arkayn adigoo dadaalay maasha allah oo intaasoo sano ama intaasoo bilood macnaha soo waday aada weli haddana natiijada haynin laakiin aad og tahay inaad waddadii saxda aheyd ku taagan tahay welina aadan natiijo arkin. ma marka qaarkood way dhacdaa adigii haddaa natiijo arki weyso waa laba mid weli inaadan sabarkii heerkii lagaa raba aada gaarin iyo waddada labaad oo ah waddo qaldan inaad ku socotid. haddaa anigoo macnaha xisaabta iyo fiisikiska ku fiicneen cilmiga dayax gacmeedkaa baranaa haddaa dhaha ka waran ama anigaa dad macallin professora ugu noqonaabo waxaa waaye hadaf fiican maaha. joogtaynteeda iyo ficil samaynteeda iyo waxba ma tarayso maadaama qodob muhiim ah uu meesha ka maqan yahay oo hibo iyo haybad aadan wixii u lahayn oo aadan karin si kastoo iskugu daydid maasha allah isku dayguu fiican yahay dadaalkuu fiican yahay sabarkuu fiican yahay laakiinse marnaba haddaysan dheheen waxaan wixii lagu abuuray ama wixii aad taqaano oo ku fiicneed oo ku madax adeegtid oo inaad samaysay waxaa laga yaabaa markaasoo kaleeto in laga fiican yahay inaad kusii madax adeegtid ee fiican tahay inaa waxaa ku fiican tahay
aa aqbashid oo dhinacaas aa uga faa'iidaysid dadkii. marka laakiinse haddaa og tahay waddadan aa ku socoto inay waddadii saxda ahayd ay tahay, waxaana oo waxaa qaban karta ay yihiin sabarka markaas inuu muhiim yahay oo lagaa rabo inaad sii wadid. qodobka labaad meeshaasaa ugu baxaynaa, waxaa u gelaynaa qodobkii saddexaad oo ay idiin sheegay oo ahay muhiimadda lahay sidee u dhisan karaa caado dhaqameed dhaxalgal ah, fiican oo waarta oo fiican, sideena u burburin karaa caado xun ama balwad xun oo aan leeyahay. marka waddadii loo mari lahay caadadaas cusub oo aad rabtid inaad samaysatid iyo dhaqankaas cusub, caado dhaqameedkaas cusub aad rabtid inaad samaysatid, waddadii loo mari lahay hadduu ilaahay idmo si aad hadafkaaga u gaartid, inay meeshan idinkula wadaagaa rabaa. waxaana jirto 4 xeer oo aan soo qaatay. 4 xeer oo aan soo qaatay ayaa jirto. 4 xeer oo aan ka soo qaatay buugaagta aan aadka u jecelaha ka mid ahoo nolosheeda wax ka bedelay. asagana waa idinla wadaagi doona hadduu ilaahay idmo. laakiin 4 xeer intaan idinla wadaagin waxaa jirto dadka dadka marka isbedel sameynayaan 3 qaybood u kala qaaday. 3da qaybood waxaa waaye qaybta koobaad oo ah qof waxaa waaye si degdeg ah oo wuxuu rabaa dunidii oo dhan hal maalin inuu ku bedelo. maanta yuu go-aan gaara, maanta wuxuu rabaa wixii siduu ahaa iyo wixii oo dhan hal maalin inuu ku bedelo. macquul way noqon kartaa, laakiinse aad iyo aad u adag tahay. welin dad badan oo saas ah ma arkin ama ma maqlin. hal maalin wixii intaas soo dhacay oo kaleeto kuma bedeli kartid. wax badan oo noloshaadii horeetoo tegay ka mid ah waa ku bedeli kartaa, waxyaabo badan waa iskaga dhaafi kartaa. laakiin hal maalin maanta wixii bedelaa, maanta go-aan gaarid beriti laga bilaaban khatara ah ma dhihi karo. wixii waxaa waaye wax aa bilowday oo howl socoto waaye, howsha bilowgeeda marka si degdegay rabaan inay ku bilaabaan. dadkaasoo kaleet marka waxaa ku dhac si degdegay ku bilaabaan, xawli iyo xawaaro ku bilaabanayaan wax yar ka bacdi, laakiinse way daalayaan. markay daalaan kadib way iska fariisanayaan ama way niyad jabayaan. isbedelka ay ku haminayeen waxay isleeyihiin macquul maaha, sidii ay ku joojinayaan. kuwa labaadaa kuusoo hara. kuwa labaad maasha allah dad fiican waaye, xirfad iyo waxay u leeyihiin, ilaahay caqli siiyey, laakiinse way sahashanayaan, wax kasta way sahashanayaan. waxay leeyihiin beritaa sameynaa, beri dambaa sameynaa, beriba berisi uga amaahanayaan. waqtigiyaa ku dhamaana, ayakana waqtigiyaa ku dhacaayo oo isbedelkii wuu dhaafaa. xilligay sameyn lahaayeen waa la dhaafaa. waxaa waaye waqtiguu isku dhammaaday. maray xeerii fardhaal kala dhaceen waxay isleeyihiin haddeeraa isbedel sameynaa. isbedelka xilligiis waa lasoo dhaafay, maadaama haddeer maray jiradii kugu dhacday ama maxaa lihi jiray ama caafimaadkaaga aa ku dheeshay ama waxyaabihii fursadihii kusoo maray oo dhan aa ka faa'iidaysan weysay. haddeer isbedelkii macnaha waxba kuma taraayo oo fursaddii way ku dhaaftay. laga yaabo inaad duqooday ama macnaha cimrigaaga uu soo dhow yahay oo xilligii mowdkiiba uu irid kuu soo saaran yahay. fircoon sidaa waa ogtihiin. fircoon oo kaleeto markii la halaagay uu biyo cabayay nafti inta u imaatay, markaasuu wuxuu damcay inuu shahaado. shahaado ma laga aqbalaa markaas? waa maya. ilaahay wuu ku caasinayay, biyuu afka uga buuxiyey. waxaa la yidhi shahaado siduu shahaado u dhihin. marka khaatimo xumo sidii ugu dhintay. marka hadduu ilaahay idmo khaatimo xumo ilaahay naguma dilo. isbedelada yaryar oo kaleetana hadduu ilaahay idmo intay goori goor tahay aan bilaawno oo aan ka faa'iidaysano. waxaa waaye qofka saddexaad oo ah qof maalin kasto ficil yar sameeyo oo tilaabo yar la yimaado. oan qofkaas qofka u baahannahay inaan maanta ka hadalno oo aan rabo caadadan siduu u dhisanayo. aan rajeynaa qofkaas inaa adiga tahay ama aa ka mid tahay dadkaas. waana qofkaas qofka aan rabo inaan ka hadalno. waxaa jira marka buug aan jecelaha oo ka mid ah buugaagta nolosheeda wax ka bedelay. buuggaas marka sidaa u jeediin waxaa la yidhaahdaa atomic habits. atomic habits aa la yidhahdaa. waxaa qoray ninkan James Clear. waa buug maasha allah oo aad looga daba dhacay oo laga helo. marka meesha inaa arkaysin ma ogi, laakiinse wuxuu noqday kaalinta koowaad uu ka galay meesha buugaagta adduunka ugu fiican lagu soo bandhigo oo ah New York Times. marka 4 milyan oo jeer aa buuggaas la gatay koobigiisa.
4 milyan Soomaaliya kala barkeed inay tahay laga yaabaa. Soomaaliya mar 8 milyan lagu qiyaasaa, mar 12 milyan, marba intay noqonayso allahu aclam. laakiinse buuggaas aadka looga daba dhacay waxaa jirto 4 xeer oo kala baxay. hadda ku hore mar horeeta aniga dhageystay, marka 4 xeer oo kala baxaa jirto oo ka xasuusta buugga. khulaasadiisa maaha waxaan hadeer meesha idinkula wadaagayo, khulaasadiisa hadduu ilaahay idmo mar kale idinla wadaagi doonaa. marka 4 xeer oo meesha buuggaas kala baxay waxaa ka mid ah xeerka koowaad oo ah ma jecleen ingiriis inaa meeshan ku dhaho, laakiinse xoogaa say wallaahi dad ah inay igu xiran yihiin laga yaabaa, ayagana siday u fahmaan. qodobka xeerka koowaad af ingiriiskeeda ku sheegaa, kadibna hadduu ilaahay idmo af soomaaliga ku turjumaa. xeerka koowaad marka wuxuu ku leeyahay make it obvious. marka xeerkan waxaa waaye qofku in uu ka dhigo waxaan uu rabo inuu sameeyo wax muuqdo oo loo jeedo. kasoo qaad aniga subaxda biyo inaa cabaa rabaa, markaa kaco hal galaasoo biyo ah, bahalkaasna ujeedaa galaaska biyaha ah adiga sariirta hoosteeda intay dhigatid lugta markaa ku dhuftid waa uu daadana. laakiinse bahalkaas galaaska biyaha ahay meeshaasaa macnaha ku shubtaa, waa xirtaa sariirta hoosteeda meesha labadeeda kabood dhexdeeda dhiganaa bahashaas. subaxda markaa kaco oo soo dego lugteyda bahalkaanay ku dhacaysaa, ama waa arkaaba meeshaa kabaha ka gashanaya. biyihii way ku jiraan, xoogaa yaroo biyo qandacaa ku shubtaa habeenkii, qacaa ka siinaa biyihii, halkaa galaasoo biyihii ahay subaxdii sidiiaa ku cabtay. duco yariisaa rabtaa in aa xifdisid ama aa ku ducaysatid salaada kadib. warqadaasaa waxaa samaystay salligayga markaa salaamo naqsado qeybta bidix waxaa dhigtay warqadaas ducooyin ku qoran tahay, waan iska akhrisanaa. maxaa kuusoo haray adkaarta habeenkia kuusoo hartay oo ah markaa cishaha tukada kadib koobadiinka waxaa saarnaa kitaabkaa ii saaran oo macnaha markaa salaada dhameeyaba ama intaana seexaninba gacantaas saas ula laacaa. labada aayadoo albaqra ugu dambeysa iska akhrisanaa, suuratul tabaarak iyo wax intaa ku dari karo hadduu ilaahay idmo, iyo aayatul kursigeyga. marka sidii caado kugu noqonaysaa haddaa meeshii wax aa u jeedid aa dhigatid, waxaa kuu sahlalaanayso in aa marka walbaba aa gacanta la laacdid oo aadan dhaafin. marka waxaa rajeynaa tusaalayaasha intaas inay tusaale in kugu filnaan karto. buug oo kaleeta midka ugu dambeeya, tusaalaha ugu dambeeya waa buuggaa rabtid inaa akhristidna ayadana miiskaa saaranaysaa, sidii aa ku akhrisanaysaa hadduu ilaahay. boorsada haddaa banaanka u bixaysa boorsadaada gashanaysaa, haddaa sariirta macnaha aad joogtid sariirta barkinta agteedaa dhiganaysaa, mar walbaba xoogaa yaraa ka akhrisanaysaa. muhiimadda waxaa waaye xeerka koowaad make it obvious oo ah wax muuqdo, wixii ma ujeedaa aa rabto caadadaa rabto inaad samaysid inaa hortaada dhigtid oo aa muujisid meel aa mar kastaba ka arkaysa indhahaaga inay horyaalaan. xeerka labaad oo ah make it attractive oo ah caadadan wax kusoo jiita ka dhig, waxee kusoo jiita ka dhig. tusaalaha waxaa usoo qaadanaynaa shukulaatada jeceshahay. shukulaatada markaa jeceshahay waxaa leedahay shukulaatada keliya waxaa cunaa markii aan wax akhrinayo. markaa wax akhrinayo afkaa shukulaatada gasanaysaa, ama waxaa leedahay aniga oonan wax akhrin shukulaatada ma cunaayo. shukulaato inaa cuntid waxaa ka xigto inaa wax akhrisid ama inaa jimicsidid adiga sidaa rabtid. macnaha intaada akhrin ka hor, ama haddaa rabtid inaa shukulaato cuntid marka koowaad inaa wax akhrisid waaye, kadib waa shaqaysata. shukulaatada inaa cuntid waa shaqaysatay oo waa u qalantaa shukulaatadaas cunitaankeeda. ama waxaa sameyn kartaa carabkaa saaranaysaa shukulaatadii waa cunaysaa, buuggaagina waa la kala baxaysaa oo iska akhrisanaysaa. macaankaasaa kugu socdo, akhriskaagana waa wadataa. hadhowti maskaxdaada waxay isla xiriirinaysaa macaanka kugu socday iyo akhrinta buugga ee isla xiriirinaysaa. marka akhrinta waxay arkaysaa wax maasha allah wax kusoo jiito ee u arkaysaa. waxaa kuusoo haray jimicsigoo kaleeto. musalsalaa jeceshahay jiro ama fiicanaa kuusoo galaya maanta aa rabtaa inaad fiirsatid. musalsalkaaga ma fiirsanaysid ilaa aad ka samaysid aad ka jimicsatid. waxaa leedahay musalsalka horta inaad fiirsado haddaa rabo waxaa waaye ka hor inaad jimicsado waaye, inaad shaqaysatid waa musalsalkaaga fiirsashadiisa. marka markasta oo jimicsatid kadib jimicsiga waa samaynaysaa, maxaa yeele waxaa rabtaa inaad musalsalka fiirsatid aa rabtaa. waxaa leedahay marka aad jimicsado si aad musalsalka u fiirsado, ama waxaa samayn kartaa dhalada horteeda aad ku boodboodaysaa musalsalkaaga iyo wuxuu kuu socdaa, jimicsigaaga meeshaa ka wadaa. indhihii waxaa ka fiirsanaysaa
musalsalkaaga ka fiirsanaysaa laga yaabo gabdhaha dhinacaas inuu badan yihiin wiilasha sidoo kale filimkani ama waxyaabaha jecleed naftaada ay kugu qasbaysay waxa wanaagsan waxaynaysaa waxaa ku xiriirinaysaa laakiinse caado cusub oo fiican oo inaa samaysid ee rabtid waa isku xiraysaa marka labadaas caado midda ugu dambeyso oo ah taasna waxaan diilayahay waa idin soo sheegay oo waxaa waaye caadadii horeeto oo aa qabtay oo wixii abaalmarinta ku ahayd iyo waxaa isku xiraysaa caadadan cusub qodobka saddexaad waxaa waaye make it easy oo ah wax fudud ka dhig waxaan caadadan aa rabtid inaad samaysid wax fudud ka dhig sida qodobka koobaad haddaa kusoo sheegayo kaleet haddaa noqotid nin ama gabar hal maalin wixii oo dhan inay ku bedelaan ay rabaan waxaa waaye waa daaleysaa wax 2 beri kadib waa daaleysaa gabgabtaada waa laga daba imaanaa adigoo meela iska fariisanaa isbedelkiina waa ka caajisaysaa marka waxaa waaye si aysan taas u dhicin make it easy ku leeyahay aad iyo aad u fududay arrintan aa rabtid inaad samaysatid buugga waxaa jiro xeer oo la dhahayo 2-minute rule xeer 2 daqiiqo ah uu leeyahay caadadan cusub oo rabtid inaad samaysid 2 daqiiqo iyaysan ka badan 2 daqiiqo iyaysan ka badanin aniga ahaan laakiinse caadadaasna waxaa looga hortagaa uu ku leeyahay caajiskaa lagu joojiyaa how to stop procrastination waxaa waaye 2-minute rule marka caajiska si looga hortago ama loo joojiyo ama marmarsiyada dhanba ay u yaraato 2 daqiiqo wax badan miya caadadan cusub aa samaynaysid 2 daqiiqo bis sameeyo ku leeyahay kadib marmarsiyo ma jirayso 2 daqiiqa laakiinse laga yaabo dad inay ku adag tahay jirtaa laga yaaba aniga 2-minute rule waa bedelay oo waxa uu sii bedelay 1 step rule oo macnaha hal tilaabo bis aa qaadaysa ama hal waxaa samaynaysaa tusaalan waxaa uga dhigay hal jumlad oo buug ah akhrinaysaa hal jumlad bis hal jumlad waxaa waaye hal sadar in noqotaa laga yaaba mararka qaarkood jumladaasaa akhrinaysaa qur-aanka hadday tahay hal aayada akhrinaysaa aayadaha dhaadheer oo albuqran ma ka sheekeynayna kuwaan hoose oo masaakiinta annagoo kale noogu talagalay hal aayadoo kuwaas ka mid ah hal aayad markaa akhrisid maxaa jimicsigaa rabaa jimicsiga inaad samaysidaa la rabaa salaada markaad tukatid kadib hal bush aabaa ka baxaysaa hal bush aab dhac gabdhaha waxay samaynayaan midaan caloosha ay samayn karaan hadday rabaan laakiinse hal jimicsiga waxaa rabtid hal bush aab wax badan miya jimicsiga halkaas xabisaa sameynay midka kaleeto ku xigta hal galaasoo biyo ah biyaha caafimaadkooda waa fiican yihiin waana naloo sheegay laakiinse way nagu adag tahay inaa bulshadeena biyo cabaalka ma aragtay aada uguma fiicnin marka hal galaasoo biyo ah calaa waqti cuntada ka hor markaa cunteynis ka horba hal galaasoo biyo ah qajac ka sii subaxda markaa soo kacdidna ayadana hal galaasoo dheer cab hadduu ilaahay idmo oo halkaas galaas qudaarta yaa kuusoo hartay iyo maasha allah qudaarta caafimaadka ayadana u fiican tahay hal xabo moose hal xabo tufaaxa iyo hal xabo liin ah hal xabo barbarooni ah qof walba halkaas xabo adig haddaa isku waxayn kartid laakiin waxaa waajib ah ugu yaraan hal xabo moos ah maalintii inaad cuntid oo qudaar la-aan aadan dhulka dhicin marka tusaalayaal intaasaa idinkugu filinaa rajeynaa oo waxaa waaye labadooda midka kuu fudud dadka waxaa waaye isku darajo maaha way xoogaa meelo kala duwan ay kala joogaan qofka bilaabayo oo macnaha aad iyo aad ay ugu adag tahay wax inaan sameeyo oo haddeer aniga hoosaa taagan ha dhahayo halkaas tilaabo ha ka bilaabo macnaha salaadii kadib hal bush ab ha ka bilaabo oo aad ha iskugu waxeen wixii adoo ku raaxaysanayo akhriska sidoo kaleeto adoo weli ku raaxaysanaya ama oo isla awood badana haysaa ma si akhrisid jooji intaa ka adkaanaysid horta xoogaa oo maasha allah khatar kasoo noqonaysid neefta ha iska dhameynin tartiibtaada u wada tartiibtaada hal tilaabadaas qaad ha kugu filnaato halkaas tilaabo 21 beri ku celceli ugu dambeynta waa u imaan doonaa caadada waqtiga ku dhismato laakiinse ugu yaraan 21 beri inaad ku celcelisid waayo haddana 66 beri ku celcelisid haddana 90 beri aad ku celcelisid ilaa iyo waxaan automatic maskaxdaada uga noqdaan ay ku xifdiso oo hadhowti fudeed kuu noqoto insha allah caadada markaasaa jaranjarada ama tilaabad ku xigtaa qaadaysaa ama sii adkaynaysaa laakiinse bilaaw haddaa tahay waxaan aad bilaabaysid wax yar oo aadan ka caajisaynin oo aad u fudud sameey oo kusoo jiito oo aadan ku daaleynin marka waa intaas hadda sheegaayo marka waxaa ka caajisaynin hadduu ilaahay idmo sameey qodobka afaraad ama xeerka afaraad oo ugu dambeeyo aa usoo gelaynaa xeerkaas afaraad waxaa waaye
make it satisfy inuu ku leeyahay waxaa waaye wax ku qanciyo ama wax ku abaalmariyo ka dhig. Caadadan waxaa ka dhigtaa wax yar oo ku qanciyo oo ku abaalmariyo. maskaxdeena waxay jeceshahay abaalmarinta degdega ah ay jeceshahay. waxa degdeg ah hadeer ma ujeedaa in lagu abaalmariyo oo waxaa samaysidba hadda laga abaalmariyaa jecesha. haddaa shaqaysid mushaarka hadeer gacanta lagaa saaro. haddii aa wax samaysid maasha allah khataraa tahay hadeer hore lagaa dhaho. haddaa wax cunto fiican iyo wax fiican aa aragtid oo indhahaaga qabtaan hadiiba inaa cuntidaa rabtaa. cuntada caafimaadkeeda iyo waxyaabaheeda kale adoo ka fikirin. marka maskaxdeena ma jeclo ama ma fiiriso ballanqaad weyn iyo waxyaabo abaalmarinta dambe oo fiican ma jeclo. aadna uguma dadaasho. meeshaas maskaxda waxaa ugala midnahay caruurta oo kaleeto. meeshaan tusaale waxaa idiin siinaa caruurta waxaa labo ilmo oo 10 jir ah kasoo qaata. ilmihii 10 jirka ahaa mid waxaa ku tiri 10 beri waxaa ku siinaa dukaankan aniga aa leeyahay 10 beri jalaato maxaa lihi jiray shukulaato nacnac macmacaan ebedka waxaa rabtid oo dhan kasoo qaado meeshaas ku baashaalo oo waxaa waaye ii raaxaysa 10kaas beri. ama 10 beri waxba maku siinaya hadeer 10 sano taa sugaysaa. 10 sano kadib dukaankan dhan adiga kugu wareejinaa. 20 jir aad tahay maasha allah. 10 sano kadib qof waxaa tahay nin isku filan oo caqli leh oo ama gabar isku filan aad tahay. 20 sano kadib dukaankan asagoo khatar noqday farta kaa saara. cunugu wuxuu ku leeyahay adeer ama eedu 10kan beri ninaca iyo shukulaatada ama dukaankayga kasoo qaata kaa raaxaystee 10 sano ii dambeysee dukaankii itusuu ku leeyahay. marka meeshaasoo kaleeto maskaxdeena caruurtaa kala midna ahay. waxaasna waxaa kalifaya waxaa waaye maskaxda hormoon ay soo deysho dopamine la dhahayo oo ah qofka waxa abaalmariyo qofka gaajada iyo hurdada iyo waxyaabaha uu jecel yahay oo dhan hormoonkaas sababo oo ah waxaas raadi ku dhahayo. marka nafsadaada haddaysa tarbiyaysnayn abaalmarinta dambe ma sugi karto ee waxay rabtaa abaalmarintan degdega ah oo hadda farta laga saarayo. laakiinse abaalmarinta dambe aa qiimo badan. qofkii marka 2 caruur ah daa iri 2 caruur midka kaleeto markii 10 beri uu qaato wiilkan uu kasoo waxeysmo 10 sano kadib wiilka kaleeto dukaanka midka kaleeto wuxuu dooranaya in dukaanka la siiyo. dukaanka 10 sano kadib waxaa waaye ninkan 20 jir waaye. 20 jir maalintuu ahaayo isagoo hadeer jaamacad dhiganayo oo maasha allah meeshan waxaa lagu wareejiyey dukaan aad iyo aad u kala kacsan. jaamacadiisa iyo waxbarashadiisa si walwal la-aan ah uu u dhiganaa. cid hadduu leeyahay cidiisana ama gabar haddii cid leedahan ciddooda walwal la-aan u biiranaysaa. dukaan u shaqeynaya jira ileen waxbarashadiisa iyo wixiisana wuu wadanaa. ninkii ama wiilkii ama gabadhii oo 10 sano ka hor 10ka macmacaanka oo doortay 10kaas berina waxaa laga yaabaa dukaanka inay diin usoo doontaan ama macnaha ay shaxaad usoo doontaan ninkan ay yaraantiisa is yaqaanin ama wixii. waxaasna waxaa keenay qofna naftiisa hadeer uu xakameeyey oo abaalmarinta dambe u doortay. qofna hadeer oo macnaha naftiisa wixii ku qasbaysay ama kula talinaysay ama macmacaansanaysa uu doortay oo abaalmarinta hadeer ah. marka hadduu ilaahay idmo abaalmarinta dambe inaad dooratiin in kula talinaa oo nafsadiin aan ku tarbiyeysiin inaa macnaha ilan taas waa abaalmarinta dambe waa midda faa'iidada runta ah leh. nafsadeena laakiinse waxay jeceshahay abaalmarintan degdega ah oo hadda ah. marka abaalmarinta waxyaabo kala duwan oo lagu sameyn karaa jirto. tusaale ahaan waxaa sameyn kartaa adi hadeer maalmahan waxaa jiro kulligiin telefoon waa haystiin applicationaa jiraan oo macnaha haddii oo kuu sheegayaan intii oo samaysay inaa inta kilomitir oo socotay inta kaloriin oo gubtay inta maxaa lihi jiray saacadood oo seexatay kulli waxyaabo kuu sheegi karaa jira. waxyaabahaas oo kaleeto maasha allah waxay ku yihiin adiga dhiirigelinay ku yihiin. markaa aragtid maasha allah intaas oo kilomitir socday intaas oo kaloriin gubay aa isdhehaysid intaas oo saacadooda seexdo maasha allah waxaa waaye hurdo fiicanaa seexday. waxyaabo kuu sheegayaa jiraan oo marka abaalmarin ay kuu noqonayaan. mid kaleet waxaa waaye waxaa samaysan kartaa qof ku dhiirageliyo oo accountability-ga adiga wax kaleeto waaye laakiinse qofkan wuuna kula xisaabtamaa laakiin wuuna ku dhiiragelinaa. maalinta caadi ka tagta horta waxaa lagu leeyahay say wax u jiraan. laakiin waxaa qofka maalin kasta intuu kasoo waco wuxuu ku weydiinayay maasha allah waa caadadii yaa samaysay waa lagu sacbinaa khataraa taha lagu leeyahay waa lagu sii dhiiragelinaa. qofkaasoo kaleeto
inaa xoogaa samaysid qof oo maasha allah kaa naxaayo oo macnaha caadadan aad samaynaysid oo ku celcelinaysid danaynayo oo ku farxayo inaa u sheegtid oo la wadaagtid asagana uu kaa warqabo hadduu ilaah idin mid kaleetoo samayn karta waxaa jirta oo meeshaan caadada haddii oo maxaa la dhihi jiray ka tagtid waxaa waaye xtaasa waxaa waaye ismaailiga waa ujeediin ma dhoola caddeynayo kan kaleetan ismaail dhoola caddeynayo waa marka waxaa sameynaya qofka xariiqnahaasaa samaysanaysaa maalin kasta samaysidba jag aa siinay jag maalin walboo samaysidba waxaa waaye waxaa leedahay khataraa tahay aa is leedahay maskaxdaada markay aragto maalin walbaba in aad sameynaysay caadadii maasha allah way dhiirigelinaysaa hal maalin way dhici kartaa way qaldami kartaa laakiin 2 maalin oo isku xigto in macnaha aa ka tagtid caadadii cusbeed waxaa waaye bilowga caado xun waaye dhaqan fiican maahan marka hal maalin qalad wuu kaa dhici kartaa waa la ogolyahay laakiinse caado cusub haddaad dhisaysa waxaa waaye 21 beri oo xiriir ah 9 beri oo xiriir ah kadib hal maalin haddaad dhex gelisid waa okay laakiinse wuxuu ku leeyahay ninka buuggaas qoray 2 maalin oo isku xigto iyaysan kaa waxaysmin midda kaleeto saacadihii waa jira applicationkii iyo saacadaha waa isku mid saacado waxaa jirta gacanta lagu xirta ayakana kuu sheegayaan waxaas aragtid abaalmarin ahaan aa u arkaysid midda oo abaalmarinta noqon karta ayadan waxaa waa qodobka 3aad sidaa kusoo marnaba waxyaabahan waxaa waaye wax kusoo jiitay oo macnaha nafsadaada farax geliyay waaye markaa aragtid natiijadii waa ku farxaysaa buugga wuxuu noogu sheegaa qodob tusaaluhu haddaa noo sheegaa qofku wuxuu ku leeyahay caadada cusub waxay u dhismataa waxaa ku kalifo midda koowaad tusaaluhu soo qaadana telefoonkaaga waxaa soo dhaca telefoonkii aa soo waxaysmay telefoonka waxaa waaye koraa waxaa ka arkaysaa fariinaa soo dhacaysa fariinta markay soo dhacdo adiga waxaa is leedahay waxaa rabtaa inaa ogaatid fariintan maxaa ku jiro qofkan muxuu soo qoray waxa soo qoray fariinta ma arki kartid laakiinse gariirkii aa aragtay fariinta inaa ogaatid aa rabtaa fariinta markaa ogaatid waxaa rabtaa inaa akhrisid waa akhrinaysaa markaa akhrisid waxaa rabtaa inaa ka jawaabtid markaa ka jawaabtid oo macnaha fariinta aa aragtid nafsadaada sidii ku qancaysaa oo waxaa waaye marka koowaad oo ah telefoonkaaga waa soo gariiri marka uu soo gariiri kadib waxaa rabtaa waxa dhacay inaa ogaatid marka aa ogaatid kadib gariirkii aa akhrisid nafsadaadi sidii ku qanacday oo waxaa waaye sidii waxaa raadinaysid nafsadaada way heshay oo wax kasta oo bilaabanaya marka caado kasta oo bilaabanaya sidaasay ku bilaabaan waxaa jirta wax yariis ah oo meel kuu jeedinayo wixii meel kuu jiidanayay waxay ku qasbayaan inaad ka jawaab celisid markaa ka jawaab celisid waxaa dhacayso inaad wixii ku qanacdid oo macnaha wixii haddaa ka jawaab celiso nafsadaada waxaa waaye qanaacay helaysaahoo maadaama xaaladii soo gabagabaysay oo soo xirtay marka caadooyinka wanaagsan sida lagu dhisto waa sidaas waxaa dhahay laakiinse waxaa jirto caadada xun sida lagu jabiyo oo booggan uu ka sheekeynayo caadada xun sida lagu jabiyo waxaa leedihiin haddeer idinka shaakiro waayihii caadooyinka xumaa aan balwadihii xumaa aa lahayn see ku jabin karnaa ama see ku burburin karnaa ama see iskaga dhaafi karnaa see ugu tanaasuli karnaa waxaa sameynaysiin 4 qodob oo idin sheegay cagsigeeda waaye ma arkin wuxuu noo sheegay wixii uu ku lahay meesha uu ku lahay haddaay ka dhig wax muuqda ka dhig caadadan wax muuqda ka dhig haddeer wuxuu ku leeyahay wax aan muuqan ka dhig caadada inaa iska qarisid waaye tusaale waxaa kasoo qaadataa tiktok inaa iska yaraysid hartaa tiktok applicationkaa tuuraysaa baasweerkaa bedele telefoonka iska fogeynaysaa ama tv inaa iska yaraysaa hartaa tvga waa daminaysaa remotekaa qarinaysaa bareyskaa ka bixinaysaa maxaa la dhihi jiray cabitaanadan soodhada iyo kuwa wax sokorta oo dhan inaa iska yaraysaa rabaa soodha dhan maba soo gadanaysid gurigaaga maba keenaysid faanta iyo koole iyo wax lamid ah ma keenaysid casirada iyo waxaas ma soo gadanaysid ayadana sokorta kaleetaa kuusoo horta ayadana waa qarine meel yar oo dambaa ku qarine raadinteedii si ay waqti kuugu qaadato haddaa macnaha xataa adoo u baahan maalinta dambeeto insha allah waa iska iloobaysaa marka dambeeto beryo kadib adaa iloobi doonaba maxaa kuu soo haray
qodobka labaad oo ah make it unattractive uu ku leeyahay. Kii horeet waxaa make it invisible oo ah inaa qarisid wixii caadada rabtid inaa iska joojisid waxaa waaye waa qarinaysaa. qodobka labaad oo ah make it attractive hadaa ku dhahay oo ah wax kusoo jiita ka yeelme. tan wuxuu ku leeyahay make it unattractive waxaanan kusoo jiidan oo aanan nah lahayn oo xun ka dhig. anigoo ahaan tusaale waxaa usoo qaatay hadeer tv-ga oo kaleeto cunto caafimaad fiicnan oo laga xayisiinayo markaa arko ale waxaa iska dhigaa wax ku labalaboonayo cuntadan wax ku labalaboonayo iska dhigaa hadhowti labalabadiyaa kuu seef gareysmaysa cuntadii kuma dhiiranaysid markastaba maadaama waxaa ku lalaboonaysa ma cuni kartid mogtahay waxyaabahaas oo kaleeto marka inaa cuntid xiiso badan kuma heenayaan. waxaa jirto caado kaleeto oo xun oo aa laheyd waxaa isku sheegaysaa nafsadaada waxaa ka dhaadhicinaysaa caadadan xun waxaa samayn jira markaa ciyaalka ah ayaa samayn jira hadeer waa weynaaday ma sameynayaa leedahay. waxaa kaleeto oo dhihi kartaa hadda waa caqliyeystay maasha allah maadaama caqliyeystay ma sameynayo oo wax weyn ilama ahan. midda saddexaad oo ah make it difficult uu ku leeyahay waxaa waaye hadaa fududeey make it easy meesha ka ahayd oo caadada fiican oo rabtid inaad samaystid oo inaad fududeys ka ahayd tan wuxuu ku leeyahay make it difficult oo ah adkay caadadan cusub caadadan xun oo inaad iska jirtid aad rabtid waxaa ka dhigtaa wax adag oo tusaalayaasha idiin soo sheegaya ka mid ah oo hadday sokortana ha soo gadan iyo cabitaanada xunxun iskana qari inta guriga kuu taalan marka inaa wixii adkaysid. midda afaraad oo ugu dambeysa oo make it unsatisfying ah oo waxaada ku qancin oo aan ku qancinin oo aan ku abaalmarin ka yeel ah. marka taas tusaalaheeda waa ka hor dhacay oo ahayd waxaan waxaa waaye wax ciyaalihii marka ahay aa samayn jiraa leedahay waxaa waaye waa ka caqliyeystay waxaa iska dhaafo waaye ama waxaa leedahay markaa duqoobo oo kaleeto ma rabaa waxaan aniga balwaddan inaa sii lahaado ma rabaa markaa duqoobo markaa xaas yeesho inaa waxaan sii ahaado ma rabaa markaa waxbarashada dhameeyo ama shaqada aa bilaabo inaa sidaan sii ahaado ma rabaa markaa gurigeyga joogo ama dadka inay igu arkaan ma rabaa caadadan waa maya waxaasa iska dhaadhicinaysaa oo caadada si ay kuula xumaato waxaan ku qancinin maya markay jawaabta markay dhowr mar ay kuu soo baxdo maya oo maskaxdaada aa u sheegtid markii dambeeto wixii balwadii oo awal markaa aragtid dhararka kaa daadan jiro maasha allah dhihi jirto ku dhiiran jirto aad jeclaan jirtay inaa waxaas samaysid hadeer waxaa waaye maadaama aa maskaxdaada ka dhaadhicisay waxaas xilligeed in lasoo dhaafay ee wax xun yihiin ama adiga aa isbedeshay xiiso kuma heenayo markaa xiisaha kaa tagan waxaa kuu sahlanaanayso balwadi si aa iskaga dhaaftid. ugu dambeynta marka afartaas qodob oo macnaha caadada lagu dhisan karo oo ah midda koowaad oo ahayd wax muuqda ka dhig midda labaad oo ah wax kusoo jiita ka dhig midda saddexaad oo ah wax fudud ka dhig midda afaraad oo ah wax ku qanciya oo ku abaalmaray ka dhig. afartaas cagsigeedana waxaa lagu burburiyaa ama waxaa lagu jabiyaa ama waxaa lagu joojiyaa balwadda oo midda koowaad oo ah waxaan xun caadadan xun aad joojisay aad rabtid ka fogaaw iska qari dadka kusoo xasuusinaya iyo meelaha kusoo xasuusinaya ka ag fogaaw. midda labaad oo ah unattractive ka dhig waxaan kusoo jiidanaynin oo fiicnayn oo aan nah lahayn oo xilligeeda lasoo dhaaf ka dhig. midda saddexaad oo ah make it difficult adkay caadadan sidaa ku waxeelin lahayd daayoo kaleeto waxaa ku dhahay telefoonka passwordka ka bedel application ma arkino aragtid inaa iska yareysid passwordka ka bedel tuur soo celi tuur haddana soo celi passwordka ka bedel telefoonka demi remote-ka qari markay kuga adkaato adiga iska waxeynaysid maalin kasta ma raadin kartid waxa hadday kuga adag tahay raadinteeda hadhowti waxaa waaye samaynteedana way kuga adkaanaysaa marka wax adag ka dhig. midda afaraad oo make it unsatisfying oo ahayd waxaan ku qancinin ama aadan ku qancaynin oo ku abaalmarinin ka dhigo ah waxaan xilligeeda waa lasoo dhaafa aniga maasha allah ka weynaada waa isbedelay hadeerna ma rabo. caadada 21 beri caado cusub markaa sameynaysa 21 beri inaa xilliga waa laisku khilaafsan yahay muddada ay qaadato dad waxay dhahaan 21 beri dad 66 dad 33 dad 90 beri laakiinse meeshaan ninkaan siduu noo sheegaa waxaa waa adiga 21 beri horta horeed inaad samaysid 21daas markay kuu dhammeeto maasha allah waa fiican tahay xoogaa maskaxdaada way la soo qabsanaysaa caadadii waxaa ku xijinaysaa 21daas 90 beriyaa ku xijinaysaa 90ka macnaha maanta kuu kasoo bilaabaysaa 21ka horeed ma xisaabsanaysid maanta kuu kasoo bilaabo haddana maanta kuu markaa kasoo bilaabo 90 beri aawadid 90 beri iyo 21 xagoo 121 beri soo maha aas-aaskaaga waa adag yahay maasha allah qof adagaa tahay waa dhisan tahay caadi ma tihid
oo beebeen laguma soo geli karo. Laakiin dhismaha guriga markuu aas-aaska la dhiso meeshaas ma ku ekaanaa? Waa maya. Waxaa dhiman dabaqadihii kaleeto iyo hooshii iyo quruxdii haddeerayba imaanaysaaba. Aas-aaska markii la dhiso haddeer wixii la arkayay natiijada haddeeray imaanaysaa. Marka natiijada markay kuu imaato 90 beri kadib ama 121 beri kadib waxaa lagaa rabaa maalin kasta inaad sii joojiso. Caadada haddeer waa la qabsatay, maskaxdaada way la qabsatay, jirkaaga wuu la qabsaday. Automatic u sameynaysaa. Faatixada makaa dhumaysaa. Faatixada suuradaha qaarkood kama fududa, laakiinse maadaama lagu celceliyo way kuu fududaanaysaa. wax kastoo lagu celceliyana saasay u fududaanayaan. Marka faatixada camal markay kugu fududaato caadada 121 beri kadib ee kugu fududaato automatic ula qabsatid caadadii inaad maalin kasta samaysid way kuu sahlanaanaysaa. laakiinse ha joojin, maxaa yeelay haddaa kala joojisid caadadii way burburaysaa oo mar kaleet inaad soo dhisteeda kugu noqonaysaa. oo caadooyinka fiicanna wax dhammaanaya malaha, dhisitaankooda adag. laakiinse markaad dhistid oo aas-aaska iyo aad uga dhistid hadhowtu way kuu fududaanaya maadaama automatic u samayn karaysid. noloshaadan hadduu ilaahay idmo way kaa anficaysaa ilaa ee noloshaada dhammaadkeeda ma arkin. oo marka caadadaasaa u dhistay ha kuu ahaato, hana kuu sii dhisnaato oo ha kala joojinin. marka tusaalaha kaleeto wuxuu ahaa gurigaaga waddadaa u marto makaa dhumaysaa? Waa maya, maadaama aa hore iyo gadaal usii mari jirto gurigaaga waddada aa u maraysid. caadadana waa sidaas oo kaleeto, haddaa ku celcelisid guriga waddadaas u xifdisan tahay oo kaleeto aa u xifdinaysaa. waa ku mahadsan tahay muuqaalka inaa intaan soo gaarto. maasha allah, waa ku hambalyeynaa. maantana waxaa taqaanaa si caadada loo dhiso, si caado cusub loo sameeyaa taqaanaa. anigana videogan youtube haddaa ka aragtid waxaa waaye muuqaal youtube sidii loo soo geliyaa aqaanaa. marka labadeennaba safaraa bilaabanay. safarkaas insha allah allaha nagu guuleeyo. waxaa ku leeyahay caadadaada allah kuu guuleeyo, caado fiican oo dhaqan gasho oo mustaqbalkaaga, naftaada, adiga iyo dadkaaga iyo diintaadaba anfacdo allaha ka dhigo. anigana meeshaan iyo hawshan aa bilaabo iyo caadooyinka kaleetaba ilaahay ha ii fududeeyo. intaa muuqaalka ku xiga iskala kulmi doono waxaa idin rajeynaa nabad, caafimaad iyo naxariis rabbi. ballanteennuna waa raadsan reeb.